hadday ku guuleysan lahayd hadda Arsenal City waa qaaday United way haysataa Liverpool haba sheegin waa champion of Europe madaxay noo saarayeen kuwaas Chelsea hal habay ka wadatay ma dib badan dib kale isku sii saayis mogt wada baldagayaay finally Chelsea waan ku guuleysanay Champions League 220 milyan oo clubka la geliyay sanadkan Chelsea Champions League ay gacanta ku dhigeen السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وعبد العاقر سنتي حتى وإلو بكور وريوقع تعاو فرحدي أدونك واي مقالة نوشيدان مقعيق وعبد العاقر جنال كداونيسيد وعاقر فوتبول جنال هذا نوع عصب تاي سود ما سبسكرايب كنو صار هذا نوري لجوكتي وكم ما سبتاي جوجست هذا كسر هذا مقال عصب تشيلسي muuqaalka gudaha uu galo caawa Chelsea waxay ku guuleysteen koobkoodii labaad ee Champions League inta ciyaarta bilaaban Manchester City waxay ugu dhigneed koobkan ee caawa ciyaarayaan finalka Champions League waa kulankoodii ugu weynaa ee abid taariikhda ee ciyaaraan Chelsea waa markeedii saddexaad ee ciyaarayso Champions League final Manchester City seasonka waxay ku guuleysteen Premier League Chelsea balse waxay qaaday dhagaweyne koobkii riyada Champions League Kai Havertz ayaa goolkiisii ugu shubay kadibna wuxuu yiri Chelsea lacagta iga soo bixiseen waa iga kaase qaata ciyaar ku bilaabatay dardar aad iyo aad u sareysa Chelsea waxay ku soo galeen line-up-kan Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Reece James iyo Ben Chilwell Jorginho, Nicolo Kante, wiilka dahabka, Mason Mount, Timo Werner, and Kai Havertz. Chelsea waxay caawa qorshaheedu ahaa ay ku ciyaarayeen gadaal inay galeen Man City weerar ay soo galeen caawa moosan ciyaarin Fernandinho waxaa shock igu noqday ama aan la yaabay Guardiola nafkiisa markaan arkay no Fernandinho no Rudy wax lix la yiraahdo caawa Manchester City maysan ciyaarin kubadooda wuxuu ku dhisneed weerar Bernardo Silva iyo Kevin De Bruyne iyo Ilkay Gundogan balse Chelsea oo aragtay line-up-kooda iyo Man City dardartay la soo gashay garoonka waa laga istaagay mar waliba ay Chelsea weerar ay qaado waxay ku eeday halis weyn Manchester City 90 daqiiqo ay ciyaartay only waxay sameeyeen one shot on target Guardiola uu ku fashilmay inuu ka badiyo Thomas Tuchel isla sanadkan gudihiisa oo seasonkan hadda dhamaaday Thomas Tuchel Guardiola wuxuu ka badiyay 3 jeer koob kala duwan FA Cup Premier League iyo Champions League Chelsea caawa waxay kaga dhigan tahay inay haystaan oo London yaallo 2 koob oo Champions League Arsenal oo ku hay jirtay Chelsea koob la kufteen ama aad ku wareerteen soo qaadeen ma koob oo kaas balse caawa Chelsea waxay dhaheen Chelsea waa la soo bedelayo dhalinyaro cusub ragii waagaas markii la qaaday 2012 Mason Mount iyo Reece James iyo Tammy Abraham Andre Christensen waxay wada jireen 14 15 iyo 13 jir balse caawa riyadii ayaa ka dhabeeyay oo koobkii ku guuleystay Ben Chilwell oo rays bixinaya caawa wuxuu yiri that's why aan u imaaday Chelsea inay qaadayso koob ayaan ogaa kooxdani waxaa loo asaasay ku guuleysiga koobka caawa waxaan halkan kugu soo gudbi doonaa ilaa iyo 7 xaqiiqooyin oo laga diiwaan geliyay koobka Champions League hadda soo dhamaaday Chelsea waxay u noqonaysaa koobkeedii labaad ee Champions League ee ku guuleystaan Edouard Mendy wuxuu noqday goolhayihii ugu horeeyay ee Afrikaan ah ee ku guuleysta Champions League misana sameeya 9 jeer oo xiriir ah oo shabaqiisa dhiyaasaday Kai Havertz ayaa dhaliyay ciyaaryahankii ugu lacagta badnaa ee clubka ka soo bixisay ayaa dhaliyay goolkii guusha caawa Thomas Tuchel ayaa ka dhigan inuu noqdo macallinkii saddexaad ee Jarmal ah oo xiriir ah oo imaado Champions League 2 sano xiriir ah kadibna ku guuleysta sanadkiisii labaad Thiago Silva ayaa asna ahaa xidigii imaaday 2 sano isku daba xigta oo Champions League final ah misana ku guuleysta sanadkii labaad wuxuu ahaa
Thiago Silva xidig ugu daawada weynaa ee ciyaara koobka Champions League final kadib Chelsea markaan ka hadlay waa kooxaha kale kama hadlayo Chelsea wuxuu ugu dhigmay Thiago Silva wuxuu ahaa xidigii ugu weynaa ee Chelsea garoonka soo gala caawa final ee ciyaaraysa wuxuu jiray 36 balse markaa waxaa ka horeeyay Makelele oo 35 jiray kulankii Man United iyo Chelsea 2008 Thiago Silva ayaa rikoorkaas sii haysta Chelsea caawa waxaan la saadaalinayaa in la sii doono 1 year kale oo qandaraas ah Guardiola guuldarooyinkii ugu badnaa oo soo gaarsiiyey intuu macallin ahaa waxaa gaarsiiyey kooxda Chelsea waxaa la gaarsiiyey ilaa iyo 8 guuldaro waxay kaga dhigan tahay kooxda Chelsea inay tahay Guardiola inta xirfadiisa oo macallinimo yahay inay gaarsiisay guuldarooyinkii ugu badnaa kala gaarsiiyey inay tahay Chelsea taageeraha Chelsea maxay leediin kala kaca caawa champione come on Blues caawa taariikh ayaa ka dhacday Chelsea mar labaad ayay xaqiijisay koobka Champions League caawa ma sii hadli karo codka iga go'an codkayga waa aragtaan oo maleynaa waa xiran yahay sheekh dabaaldeg leh waa intaas waxaa idin leeyahay meel walbaa joogtiin Chelsea fan hambalyo taariikhda ayaa Chelsea caawa dib isku qortay 2012 iyo 2021 Chelsea ayaa ka dhabaysay riyadii ahayd sanadkan wax badan ayaa isku aadaaday waxay u dhigmeen sidii 2012ka qaabkii oo kale ayaa lagu socday balse waxaan luus garaynay FA Cup balse FA Cup waxa iga mayo gelinay Champions League marnaba deebahayo Champions League dhaga weyne waxaan kaga baahanahay FA Cup ayaa iska yar come on Blues come on waa dabaaldegayay Chelsea caawa farxadeeda lama qiyaasi karo Chelsea Thomas Tuchel wuxuu yiri waa ii cajiib waa markaygii ugu horeysay aan qaado koobka balse mar waliba waxaan ku tashanayay in ku guuleyso doono kooxdan saasaan ay lahaayeen ciyaartooydan dhiirgelinta ku jirtay iyo hamiga ay lahaayeen inaan qaadayo caawa waan subay ayuu yiri odaga balse Guardiola dib ayaa u soo saaciday mar waliba oo Thomas Tuchel ka hor imaado waxaa la ciyaaraa 3 at the back 4 iyo 3 weerar markay Man City kubadda haysato caawa ay dhaxda soo ciyaaraan 7 nin ayaa weerar ku imaanayso kadibna Guardiola iyo kooxiisa gonooni meel ay geeyaan ayaa la waayay Kevin De Bruyne N'Golo Kante ayaa raacay man isku dhuusin bande Kevin De Bruyne wada laga saaray ninkii xaajiga ahaa sanadkan N'Golo Kante cid ka haysato Ballon d'Or ma jirto haddii sanadkan N'Golo Kante la sii waayo laacibka adduunka waxa waaye waafade waa xaqirad markaa moogta balse ninkan N'Golo Kante cid nacday ayaa la waayay N'Golo Kante taariikhdiisa dhan 2012 ayuu ka soo bilaabay xirfadiisa Faransa League 2 ayuu soo ciyaaray League 1 kadib 2015 ayay Leicester City soo iibsatay kadib wuxuu ku guuleystay Premier League ayuu Leicester la qaaday 16 Chelsea ayuu imaaday Premier League ayuu ku guuleystay Europa League ayuu la qaaday Chelsea Champions League FA Cup marka World Cup-na wuu ku guuleystay N'Golo Kante Champions League ayaa ka dhinaa caawa ayuu gacanta ku dhigay only waxaa ka dhiman N'Golo Kante waa Euro sanadkan waxaa la ciyaarayaa 2 isbuuc kadib waxaa la ciyaari doonaa Euro ayaa furmi doona N'Golo Kante Euro ayuu ku leeyahay mar labaad wuxuu ku leeyahay aniga riideeda waxaa ka dhiman koob lagu guuleysto waa Euro N'Golo Kante waa kuutaa saaxiib waa kuutaa wiliga Allah Chelsea fan hadaa tahay hadaa N'Golo Kante wadatid marnaba ha ka shakin Chelsea marnaba Chelsea ha ka shakin N'Golo Kante haduu dhaxda ciyaarayo warninka maalata meeqan ayaa qiilis mtaqana Toni Kroos wuxuu yiri intuu difaac markay Real Madrid u baxayso Chelsea inuu iga soo qaado dhaaf boxka dhacdiisa iga difaacay ayaa waxa arko dhaaf box kala soo joogo marka N'Golo Kante waxa ku dhacday maba jiraanba ciyaartooyda adduunka ka hor imaatay ayaa ka qaylisay N'Golo Kante madax ayuu marka waxay ka dhigan tahay Man City inaysan ahayn kooxdii u horeysay abad taariikhda Champions League final imaata
ee ku guuldareysata ayay ku baxeen waxaa ka horreeyeen ama hore u sameeyey sidaas oo kale ee ku guuldareystay inay qaadaan markoodii ugu horreysay Champions League final imaadeen waa Monaco Leverkusen Chelsea PSG kooxo badan oo fahmano carabtii u dambeysay PSG lacagta gelisay xataa sanadkii hore Bayern Munich arbaaxay ka badisay oo laga qaaday 1-0 marka carabtaanne sanadkan haddana Man City carab kale lacag gelisay oo laga qaaday mar labaad carabtii sanadkan dhaqaalahoodii khasaar u noqdeen mid ku darso Man City taageerayaashooda dhan tikitka waxaa bixiyay carabka iskale eebo lacag ninka iskale kalaabka taageerayaasha tikitka garoonka elboorka waxaa la yidhi ho dhag wuxuu u malayaa inuu kusoo guuleysanayo Champions League abti waxaan hore u dhaceen anaga markii ugu horeysay Champions League final gaarnay 2008 Man United Chelsea oo wax ka dhaawac lahayn ciyaartooyda dhan u dhan tahay penalty na wala qaaday xala caleega la yiraahdo Man City waxay leeyahay soo weynaada City yarisay wax badan barataan waaye dhowr jeer final aad tagtaan kadibna aad ku guuleystaan waxaa midda iigu yaabka badan taageerayaal Arsenal oo saaxiibayaashay waxay taageerayeen caawa Man City war City yarisay mid ku sheegay City yarisay haday ku guuleysay Champions League way ka hormartay hadda Chelsea dib ku qabtay oo Champions League hal koob haysan hadii lagu dhaho waa aamusaysa markii war la galo balse xifaalta markuu imaado oo Chelsea af ku soo taagtid Chelsea waxay ku leedahay Champions League ka wataa maxaa haysta adiga waxba marka Man City haday ku guuleysan lahayd hada Arsenal City waa qaaday United way haysata Liverpool haba sheegin waa champion of Europe madaxay noo saarayeen kuwaas Chelsea hal habay ka wadatay ma dib badan dib kale isku siisa ay smokt laakiin Chelsea iska qaad iska dhaaf marka tiraada Chelsea amuran gashaan Chelsea marka dhadi Chelsea waxay qaadnaa anaga laba champion dib ma laana xataa Man City kuma qaadin aragtaano marka meeshaas laga rabay inaad ku fikirto laakiin taageernimadiinii kursiga ku fadhiisteen gamarka Chelsea u dhigateen oo qasaare saaxiib come on Blues come on intaas muuqaalkii ku soo gabagabayna salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh